bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa youtube-keena xanta wararka waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobada aan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doona hay-adda lacagta adduunka ee i m f hanjabaadoodii kadib shir dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda hay-addaas u dhexeeya ayaa waxa uu ka furmay gudaha wadanka soomaaliya. haddaba shirkaasi waxyaabaha diiradda lagu saarayo ayaan si gaara dul istaagi doonaa. sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa mucaaradku waxa ay dalab culus u direen xildhibaanada dhowaan lagu doortay ama markaa xildhibaanada la doortay ee ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya. waxaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale ammaanka magaalada caasimada ee muqdisho faraha ayuu ka baxay, ciidamada ammaanka oo ku fashilmay inay markaas sugaan amniga doorashooyinka iyo sidoo kale ummadda soomaaliyeed ee ku nool gudaha muqdisho. qodobadaas ayaan si gaara idiin soo gudbin doonaa. haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato youtube-keena xanta wararka waxaan kaa dalbanaynaa in youtube-ka subscribe inoo saarto, muuqaalkana like aad inoo saarto, asxaabtaadana u shargarayso si saaxiibo wanaagsan oo adigoo kale mid aan u yeelanno. waagaag haddii aynu ka bilowno waxaa shir looga hadlayo dib u oogista hanaanka maaliyadda soomaaliya iyo sidoo kale arrimaha deyn cafinta markaa uu u furmay dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f. shirkan ayaa sidoo kale waxa ay ka qeybgalayaan mas-uuliyiin ka socda hay-adda lacagta adduunka, wasaaradda qorsheynta iyo sidoo kale wasaaradda kale ee maaliyadda. waxa uuna sidoo kale uu ka qabsoomay qaab fogaan arag ah. waxaa la filayaa inuu sii socdo muddo toddobaad ah sida markaa xogaha lagu helay. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in shirkan looga doodayo dib u habeynta hanaanka maaliyadda soomaaliya, kaasi oo sidoo kale tallaabooyin isweydaarsan ay markaa iyagu doonaan labada dhinac ee shirkaasi markaa u dhexeeyo. wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa hogaaminaysa shirkan oo sidoo kale ay ka qeybgalayaan hay-adaha dowladaha qaarkood sida wasaaradda qorsheynta qaranka iyo sidoo kale bangiga dhexe ee soomaaliya. dhowaan ayay ahayd markii hay-adda lacagta adduunka ee i m f ay sidoo kale uga jabtay dowladda federaalk soomaaliya inay joojin doonto barnaamijka deyn cafinta iyo sidoo kale taakuraynta ciidamada haddii doorashada si deg deg ah markaa loo qaban waayo. arrintaas ayaa sidoo kale waxa ay tahay mid markaa dhaawaca aad u xoogan ku noqon doonta geedi socodka soomaaliya, iyadoo sidoo kale shirka ka furmay dhanka fogaan aragga una dhexeeya madaxda hay-addaas iyo sidoo kale wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta uu yahay mid markaa inta badan looga doodayo qaabkii hay-adda lacagta adduunka go-aankii dhowaan markaa ay gaartay marka ay uga noqon lahayd. ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa wasiirada wasaaradaha qorsheynta iyo sidoo kale maaliyadda waxa uu sidoo kale ku cadaadinaya in shirkaas ay markaa iyagu uga qayb galaan xukuumadda soomaaliya inay matalaan. waxauna sidoo kale ra-iisul wasaaruhu doonayaa in markaa hay-adda lacagta adduunka ay ka laabato go-aankii dhowaan kasoo yeeray ee ahaa in markaa iyadu doorashada haddii si deg deg ah loo dhammayn waayo ay joojin doonto barnaamijka deyn cafinta soomaaliya iyo sidoo kale mushaaraadka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya marka ay qaataan. hay-adda lacagta adduunka ayaa sidoo kale arrintaas waxa ay noqotay markii uu kasoo yeeray hadalkaas mid walaac aad u xoogan ku abuuray gudaha wadanka soomaaliya, waxaana sidoo kale dhowr jeer guuldaraystay dadaallo aad u xoogan oo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble xukuumaddiisa ay ugu jirtay in markaa sida ugu dhaqsiyaha badan arrintaas loo xaliyo. laakiin haatan ayaa sidoo kale shir dhanka fogaan arga waxa uu furmay madaxda hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo sidoo kale xubno kale oo ka socday dowladda federaalk soomaaliya. labada wasiir ee shirkaasi ka qeybgalaya ayaa sidoo kale waxay wararku tilmaamayaan inay yihiin xubno aad ugu dhow madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. waxaana sidoo kale la rumaysan yahay in wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaali beyle uu ka mid yahay xubnaha sida indhala-aanta maxamed cabdulaahi farmaajo u taageeraya. laakiin dhowaan ayaa sidoo kale waxa uu waayey kursigii xildhibaan ee 4 sano ee lasoo dhaafay isagu markaa uu ku fadhiyey. cabdiraxmaan ducaali beyle ayaa waxa uu dadaal aad u xoogan u gelinaya hanaanka deyn cafinta soomaaliya iyo sidoo kale qaabkii soomaaliya wax ka socda marka ay kugu noqon lahaayeen kuwa markaa lagu wada qanacsan yahay oo bulshada soomaaliyeed ay doonayso. laakiin isaga ayaa sidoo kale kursigiisa markaa si gaara loogu diiday, islamarkaana waxaa loo sheegay in aanan loo haynin wax kursi ah oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya. cabdiraxmaan ducaali beyle ayaa walaac aad u xoogan dhigiisa ka muujinaya arrintii markaa lagula kacay ee kursigiisa sida gaarka loogu diiday. waxauna sidoo kale isagu uu sheegay in markaa isagu kursigaas uu xaq u lahaa, islamarkaanina deyn cafinta soomaaliya intii isku mashquulsanaa markaa looga faa'iidaystay kursigiisana shakhsi kale oo markaa isagu aanan beeshiisa ka dhalan la siiyey. waa sidoo markaa isagu hadalka u dhigay cabdiraxmaan ducaali beyle oo isagu sidoo kale ah wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya 4 sano ee lasoo dhaafayna sida indhala-aanta ah ka midka ah xubnaha sida aadka u taageerayay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo.
dhinaca kale daahir maxamuud geele oo ka mid ah musharaxiinta sanadkan u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya sidoo kalena ah afhayeenka midowda musharaxiinta mucaaradka ah ayaa xildhibaanada dooran ee labada aqal waxa uu ka dalbaday inaysan ka leexan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. daahir geele ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in gacanta xildhibaanada dooran ay markaa ku jirto badbaadinta dalka loogana baahan yahay inay markaa iyagu ka shaqeeyaan danta dalka iyo sidoo kale dadka isla markaanina aysan dheg u taagin kuwa leh annaga ayaa soo saaranay. xildhibaanow dembi ayaa sidoo kale lagaga abaaldhigayaa dadkaagii iyo sidoo kale deegaankaadii oo duulayay lagana hor istaagay inay markaa iyaga ku doortaan ayaa lagaga abaaldhigayaa. dembi ayaa sidoo kale lagaga abaaldhigayaa maalintii niraada ee dembigaas sidoo kale aad ka jawaabi lahayd ayaad joogtaa ayuu yidhi daahir maxamuud geele. mararka qaar xildhibaanada waxaa sidoo kale la leeyahay annaga ayaa soo saaranay. taasi keliya ma aha in waxa la rabee ee qiimaha iyo sidoo kale awoodda uu leeyahay ee la rabo ayaa sidoo kale ah in la dhimo ayuu sidoo kale hadalkiisa kusii daray daahir maxamuud geele oo ka mid ah xubnaha golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. daahir geele ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in xildhibaanada wadada keliya ay ku badbaadi karaan gacan ku haynta keligii taliska ay tahay in codka halka uu sidoo kale rabo uu ka leexiyo una codeeyo danta shacabka iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed. sidoo kale waxa uu soo xasuusiyey xildhibaanadii iyo sidoo kale cid kasta ee markaa iyada u dekanowday taliska farmaajo bannaankana sidoo kale la keenay iyadoo sidoo kale loo diiday inay tartamaan. sidoo kalena xildhibaanada cusub taasi mid la mid ah ay sugayso haddii aysan sidoo kale iyaguysan xisaabtamin. ugu dambeyntii waxa uu sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in isbeddel xagga horumarka ah uu markaa ka dhaco waddanka taasi oo sidoo kale meel marin karaan xildhibaanada cusub ee labada aqal oo sidoo kale badankood lagu soo saaray hannaan boob ku dhisan. waa sida markaa laga soo xigtay daahir maxamuud geele oo isagu sidoo kale ah afhayeenka golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. daahir maxamuud geele oo sidoo kale ku hadlayay afka mucaaradka ah ayaa sidoo kale dhowr jeer waxa uu shaaca ka qaaday in marnaba aan la aqbali doonin in doorasho boob ku dhisan laga hirgeliyo gudaha waddanka Soomaaliya. taas ayaana sidoo kale waxay tahay mid markaa dhaawacaysa danta guud ee Soomaaliya. midowda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowr jeer waxa ay sheegeen in markaa ay suuragal tahay in la qaado doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maadaama doorashadu sidii loogu talagalay aysan u socon. mucaaradka sidoo kale waxay ku adkeysanayaan in markaa iyagu indhaha iska tiraan boobka haatan lagu hayo doorashooyinka xildhibaanada iyadoo sidoo kale ay suuragal ay tahay in markaan mucaaradku ay ku dadaalaan qaabkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo gebi ahaanba meesha looga saari lahaa maadaama isagu sidoo kale uu dadaal aad u xoogan gelinayo qaabkii markaa uu kusoo bixi lahaa 4 sano ee soo socotana Soomaaliya markaa uu ku hogaamin lahaa. xubno madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo aad ugu dhow ayaa dhowaanahanba doorashadooda waxaa lagu qabanayay xarumaha dowlad goboleedyada dalka qaarkood iyo sidoo kale gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la rumaysan yahay inuu yahay shakhsiga kaliya ee doonaya in 4 sano ee soo socota si awooda markaa uu kusoo laabto maadaama isagu sidoo kale uu doorashada inuu boob u adeegsanayo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo sidoo kale loogu talagalay in markaa maxamed cabdulaahi farmaajo ay kala shaqeeyaan qaabkii 4 sano ee soo socota markaa uu kusoo laaban lahaa. waxaa sidoo kale aad looga deerinayaa haddii 4 sano ee soo socota farmaajo uu soo laabto sida uu maamuli doono doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee ka socda gudaha waddanka Soomaaliya. laakiin arrintaas ayaa sidoo kale dadka qaar waxay leeyihiin suuragal ma aha in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu soo noqdo isla markaanina uu hogaamiyo Soomaaliya. wararka ayaa sidoo kale waxay intaasi kusii darayaan in haatan sidoo kale maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku dadaalayo qaabkii markaa isagu uu markaa ku shaqayn lahaa 4 sano ee soo socota. laakiin arrintaas ayaa sidoo kale waxay tahay mid markaa walaac aad u xoogan laga muujinayo maadaama dadka qaarkood ay aaminsan yihiinba in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku fashilmay hogaanka ummadda Soomaaliyeed isla markaanina uusan ahayn shakhsi markaa mudan inuu hogaamiyo bulshada Soomaaliyeed. madaxweyne farmaajo oo madaxweynaadkiisii sanad ka hor u ilaaday ayaa sidoo kale dadaal aad u xoogan gelinaya qaabkii markaa mucaaradka loo bahdili lahaa waxaana sidoo kale dadaalkii ugu dambeeyay u galaya qaabkii markaa weerar aad u xoogan loogu qaadi lahaa xubnaha golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo iyaguna sidoo kale xubno ka aragti duwan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo markaa isagu sidoo kale sanadkii labaad oo sharci darro ah markaan haatan sidoo kale ku qaadanaya gudaha villa Soomaaliya maadaama kii hore muddo markaa laga joogo maalmo oo isagu sidoo kale u soo dhamaaday. ugu dambeyntii weeraro loo adeegsaday bamgacmeedyo ayaa lagu qaaday saldhigyo booliiska qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. weerarada bamgacmeedyada oo ka dhacay maalin cad ayaa lagu weeraray saldhigyada booliiska degmooyinka Wadajir, Howlwadaag, Hodan, Boondheer iyo sidoo kale
degmooyin kale waxaana ka dhashay khasaare kala duwan walow ilaa iyo haatanba sidoo kale aanan la soo warin tiradaasi. Al-shabaab ayaa mas-uuliyadda weeraradan sheegatay iyadoo sidoo kale xustay inay markaa ku waxyeeleeyeen askar ka tirsan booliiska Soomaaliya, waxayna sidoo kale ku hanjabeen inay sii wadi doonaan falalka caynkan ah oo iyagu sidoo kale ay ka fuliyaan gudaha waddanka Soomaaliya. Booliiska Soomaaliya oo goor dambe ka hadlay warbaahinta ama markaa la hadlay warbaahinta ayaa waxay tilmaameen inay markaa gacanta ku dhigaan 7 rag ah oo ka dambeeyey weeraradii lagu qaaday 6 degmo oo caasimada markaa ummadda Soomaaliyeed ku yaala. Weeraradan oo si weyn markaa loo hadal hayo gudaha magaalada caasimadda Muqdisho ayaa qalqal ku beeray dadka rayidka, waxaana sidoo kale iyagu ay ku soo aadayeen xilli magaalada madaxdu ay sidoo kale isku diyaarinayso doorashooyinka xilalka ugu sarreeya Soomaaliya. Si kastaba haatee, Muqdisho ayaa wajahaysa xaaladihii amni mid ka daran midii magaaladu sidoo kale wehelka ay ahayd sanadadii lasoo dhaafay, mana jirto cid u muuqata oo mas-uuliyad iska saaraysa dayaca amni ee sidoo kale ka jira, kaas oo sidoo kale culeysin haatan sidoo kale shacabka ay kala kulmayaan. waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan. haddii ay tahay markii kuugu horreysay aad soo booqato youtube-keena xanta wararka, waxaan kaa dalbanaynaa in youtube-ka subscribe inoo saarto, muuqaalkana like aad inoo saarto, asxaabta haddana u sheer garayso si saaxiibo wanaagsan oo adigoo kale midaan u yeelan. waana ku mahadsan tahay daawashadaada.